iminka waxa soo baxaya gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo hoggaanka xisbiga oo dhan way lugeynayaan waa kan gudoomiyihii oo socda hoggaan وانا كقاضنا يا سيدي كوسا كقاضنا يا سيدي xaruntii guud ee xisbiga loo socdaa loona joojin maayo nidaamka maanta dalka jooga daalimka ah socda والله صعوني لقنا بقن مايو حرمت جودنا حوق بالغ حرينا إن شاء الله صع واتا حرمت جودة حسبكو وانا الله الصعدة صعدة حوق بالغ فرنا يا حرمته وطا حرونتي جود ولا فرتي حق بالغ فرتي حق بالغ فرتي بنا حق بالغ فرتون كفرني واخا قدومي الله أكبر قدومي عبد الرحمن قدومي عبد الرحمن محمد عبد الله ما حرقنا حوق بان كفرني حرمتي حسبك حوق بان كفرني نظامك فليقة لقى بقن ماي صعدة بنية حوق بان كفرتي حرمتي قودة حسبك حوق بان كفرني حوق بان كفرني ما شاء الله هذا صعدة والله حوق بان lagu furtay xoog iyo xiniyo ayaa maanta lagu furtay nidaamka fulayga ah ee wadanka ka talinay loo joojin maayo fulay weeyaan nidaamka meesha jooga waa fulay يوريا حفيزك وطن حرمتي جود وان دح مرينا قدوميه حق سر سارن yahay hogaankii xisbigu fulay waxa tahay markaad askar soo dirto hogaankii xisbigu ma sha Allah askar lagagama cabsiyo reer wadani ninka askarta soo dirayo askar lagagama cabsiyo adeer dalka weyn wada leenahay edab hadda lagu wada joogi doonaa lagu wada joogi waayo wax ka daran baa lagu wada joogi doonaa
maayarka kulmiye ee meesha ka caytamaya qoraalada soo qoraya qeyrada ah ee beenta ah ee riwaayada ah ee oohinta ah waxa ooyaya waxa weeyaan kuwa adiga ku soo diray taageerto ee fulayda ah halkan waxa jooga dabcan hogaankii xisbiga fulintii iyo taageerayaasha qaar kamida عندما حسين عيديد واقف سكرية هذا واحد شوقة عبد الله جلشري واحد شوقة اللهم قدومي قرب كدلني رضا محمد صديق واحد شوقة قرب قدوميها قبل كمرودي جه هوينك هيا شوقة مروي سهراء اللهم صل على محمد هلك واحد شوقة محمد فرح صاحب كي واقف كان كتير واكن قدومي عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يهو قامي حرسي علي حاج حسن حوق بالغو سو غلا حرunta حوق ayaa lagu soo galay farinteedu way gaadhay nidaamka kan waxa weyn maxamed sadiiq gudoomiye garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga xogayihi baa halka joogay sabna aftax dagaalamaya loo kala harimayo oo intu xaq u yimanayo cadaalad ku dhexsaasay صح haddaba saaxiibayaal kulay live-ka waan ka baxaya oo waxa hadlaya hogaankii xisbiga sayid oo yar bane qori iyo rasaas iyo waxa si la isku kuma sheekeeyo adeer caalam qarnigii 12aad baynu joognaa shucuubtu caburinta iyo caga juglaynta way ka ilbaxday nidaamka wadankana waa la wada leeyahay hatta la wada yeelan waayana adeer garan mayna meeshayna geenayso waatan xaruntii xisbigu xor bay tahay waa la xoreeyay gudoomiyihii iyo intii la socotay baa xoog ku furatay waa taa xaruntii guud ee xisbigu taageerayaashina daaradday taagan yihiin waa kuwa taageerayaashii waa kuwan taageerayaashii xisbiga wadani isbedel doonka waa kuwa ciidamay soo direen dheeraad ah laakiin ciidanku annagoo ixtiraam iyo qadarin u hayno waxaanu leenahay dadkiina adeerayaal u tura xisbi yiri dadkaygaan la hadlayaa looma caga juglayn karo lagumana kibri karo saaxiibayaal waarisugu waxaan qaadanayaa saaxiibayaal maanta waata ninkaasina waa xogayihii amniga xisbiga Saad Balaki me ragil hala soo gali maayo xarunta ya adeer la isku macaga jugleeyatan waa Soomaaliland wadanka waa la wada leey ii qabo walaal ii hay waa computerkaygi habbu fiyan sumba sheegaysaa ay waxay doonayaan karaatoonna hashidan haday doonaan halkan طبعا waxa jooga madaxdii xisbiga ayaa joogta xoog bay ku furteen raganimo waa kuwan taageerayaashii xisbigu soo dhawaada waa la idin furee halka waxa jooga saaxiibkay Cabdiraxmaan Guun halgamaagi weynaa ragii jabiyay maanta meeshaas Cabdiraxmaan shucuurtaada ka warra shucuurtaada maxaad dareemaysaa ma weeye halkii xoog iyo ciidanka la duldhigay waa naga qasab ku jabiyay
نحن قبلنا مظاهرات سلمية أيام كنا واقعي صدق المعلومات سفي عن رجنمو هالجنة مبارك بتشوجه مظاهرات سلمية نقول واقعي صدق والصح قبل والله كهر إن ما إنما دحدنا إعلامي ليس إعلامي قدومي قبل والله وسوى أحسن تاجرياش يحس بجاه كان يلتشوجه ماشي صاحبك صدق برمضو بي سي ده هذا ما في سلامية أنت والديار بنون عاي وصح رجنمو أنا الوضع كذا بهالجو هذا شوجه إذا بهالجو هذا شوجه وطن دبده إنه بحينا ciidanku طبعا wuu joogaa meesha ciidanka anagu dhibaato u geysan mayno ixtiraam baan iyo qadarin bay naga mudan yihiin laakiin waa kuwa taageeraya waxa soo ciidana maanta meeshii la soo tubay taageerayaashii waa kuwan suntii baa dabcan lagu buufiyeeyo way ka fool dhaqanayaan insha Allah وطني معارض ضق وطنكم الله رجل همه ما حد عيدك وصوت بتنا طيران معارض ضق هاي ويا هذا سو كلفتين اسكرتين مساكين تا عيدك waa طبعا halka waxa jooga xogay gaarka hay gudoomiye Cabdiraxmaan Cabdullaahi xaruntina waatan way xorowday xaruntii reer wadanima haysta oo gacanta ugu jirtaa gacanta ayay ugu jirtaa waa taa xaruntii guud ee xisbigu اهلا ايوه خير والله في عنتها الحمد لله خير يا عافماد واكون مدحدي xisbiga soo galeysa qaar kood waa kuwa soo socda halka Cabdullaahi taageerayaashii xisbiguna waa kuwan way socdaan war saaxiibayaal waan idin salaamaya waa taa xaruntii waligood rasaasta haridaan annagu ka baqan mayna rasaasadeer waligiin barida dheh marka xaruntii xisbigu gacantay ugu jirtaa Cabdullaahi baa ila jooga live-kii weeyaan wax ma odhanaysa Cabdullaahi iyo maanta shucuurtaada maxaad ku cabiraysaa maanta حوي والله يا ضدكي حبدا لو جيده قدوميهي قار با داوعمay meeshada ma ogin ilaahay khayr ka dhigo dhibaato badan baa jirta food ma yidhi way Cabdullaahi waad mahadsan wuxuu ahaa Cabdullaahi buu ahaa inkaasi oo kamida xubin fulinta xisbiga wadan iyo hoggaanka ah صاحب يا نولو تايجر اد باكو سلامه يا ادي اد باكو سلامه يا taageerayaashii xisbigu way joogan xaruntoodii soo dhawaada halkan waa hodan waa la dilay dabcan hodan weeyaan xisbigay ka tirsan tahay inantu dhirbaaxadaas ku dhacday ya life way asxaabta waan idin salaamaya gudahan kolley kaleeyay aad baan idin salaamaya khayr baan idin rajeynayaa caafimaad guul iyo gobonimo aan idin leeyahay